الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورا الليال عاوة واي تاريخ ذو تاي صدح يلا واتنكي بشر هجم ونفر بقول شنية صدن إنه أفردنا مسجد كاوين علمتان ليرهضه المعمور بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله تعالى وحا أين هرفدنا ومرتين شيخ نوين عالمك الصوماليات الشيخ الفاضل شيخ محمد عبد أمل حفظه الله ورعاه إلهي كيل علي من كل سوء ومكروه ورا الليال شيخ وغني عن التعريف إنينو تلمان شيخ كويهي إيا أقونتيسا ومباهنين إنينو تلمانو waayo waxaan filayaa dhalinta ee hor fadhida mid aan dhageysanin ama aan arkin oo shaashaadka ka arkin oo aanay duruustiisii mobilada ay haysan aanay ugu jirin waa yar yahay baan isleeyahay dhalinta ay hor fadhida magaalada Hargeysana sakada aanay ka baxaynin muxaadaraadkiisa iyo duruustiisu waa yar tahay marka sheekhu waa sheekh inoo ah waa sheekh aynu codkiisa iyo muuqaalkiisaba hore u haynay waxa inoo dhinaa keliya uun inaynu si layfa xaya aynu u soo hor fadhiisanno oo aynu u dhagaysanno oo muuqiisa aynu u aragno ayuunbaa inoo dhinayd tiina ilaahay fadligiisa caawa ayuu inoo hirgeliyey iyo insha allahu tacaala habeenada soo socda sheekhu walaalayaal waxa uu ka mid yahay culimada yar ee kooban ee ku sifoobay sifada nabigeenu sala allahu calayhi wasallam xadiidka ay culimada in badanina xasan ku tilmaameen qaarkoodna daciifiyeen النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين علميا وها حنباريا خلف قساء يجيل كساء يفع كساء كويس عادلين تا أيا حنباريا أو كأنفليا أو كتريا أو كريبيا تحريفك إيا وعنتها يكون صبينيا أنددك غالينتها يقولوك إيا حد قدبك صبينيا إيا تأويلك إيا ولادة أيددك جاهلينتها يكون صبينيا علماء رنتي كأن في ذي إن بدنك غيب قادتي توجيهنتا إيا ترشيدينتا صحودا بركيسا ومدن أيوك مديحي فتن قرنتي دعي inagu habsaday dadka qaarkood ay la yimaadeen dadka qaarkood dacwadii iyo diintii meel walba gaadhay ay ku durduriyeen ay digada kaga dhigeen waxa uu ka mid yahay inta yar ee ka badbaaday ee ka soo hadhay inagu aynu ka mid nahay dadka ilaahay ku anfacay tawjiihooda ee aan ka gabanin dalaalka iyo baadi ay ku sugayeen in badan cadeeyay طريقة توصلنا إن بدن عدية أيو كم يديهي إلهي هكا المريو إننا هينقو أنفعو شيخ هاي مرتيونا هاي كنتي إلا ساكا إلا مردويتو سفر بوتاقنا شيخ إلا مانتا إساقو دالن وحاو هدنا نقو قلادي إنو عاوة سيدي أن حليب مساجين كعلاميي inuu isagoo saa u daalan haddana inuu hor yimaado oo caawa muxaadaro inoo jeediyo tacabka iyo daalka runtii ilaahay dartii u soo galayna
waxaan leeyahay allaha ka abaaliyo miisaanka xasanaadkana ha kuugu daro sheekhu caawa in sha allahu tacaala wuxuu inoo gelayaa muxaadaro ku saabsan islaaxu lquluub in sha allahu tacaala habeen dambana waxau inoo geli doonaa sublu najaat min alfitan ayuu inoo geli doonaa in sha allahu tacaala masaajidkan aanu ka geli doonaa wixii dambe ee muxaadaraada rag iyo dumarbana hadba xilliga iyo goobta ay ka dhacaysana in sha allahu tacaala waa la iclaamin doonaa hadalka yaan waxba kaga tumanin sheekha isaga ayaan sheekha ku soo dhowaynayaa wajazaahu allahu khayran falyatafadal الsheekh mashkuuran ma'juura إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي لما لا يعلمون أيها الأحبة في الله مناسبة أترنتي فرحت أوله إلهي باكم حسن تبارك وتعالى كلنك عاوان كوكولنا مساجد كم بركيسن waxaan ilaahay weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu saacadaha aan fadhino waqtiga gaaban aan fadhino in uu miisaanka xasanaadka inoo saaro wixii aan dhagaysanana ilaahay inagu anfaco tabaaraka wa tacaala nagana ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu naga ilaaliyo zalalka iyo khata'a iyo gafka sawaabkana nawaafajiyo kelimada aan jeclahay caawa in sha allahu tacaala inaan idinla wadaago sida mashaayikhdu u sheegtay waa islaaxu lquluub in quluubta la hagaajiyo aad bayna munaasib u tahay inay noqoto awalu muxaadara ufaatixukum biha maadaama quluubtu ay tahay meesha ugu muhiimsan saan tilmaami doono ayaa munaasabad waxaan u arkay inay muhiim tahay inaan iyada wax ka dhahan caawa oo aan hadalkeenna ku bilowno jidhka bini aadamka saan ogsoonnahay walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala abuuray wuxuu u sameeyey